الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع والفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, marka koobaad waxaynu u mahadnaqaynaa allahu subxaanahu wa tacaala ee inugu kulmiyey fi hada almakan alطayib wa calaa ma'dubatin kariima, meel fiican, meel lagu kulmo, meesha ugu khayrka badan ee ugu wanaaga badan. marka labaad waxaan u mahadnaqiyaa walaalkay الشيخ أحمد محمود jaamac oo ku magac dheer axmed maydal, sidaa wanaagsan uu inooga ajiibay هذه المحاضرة iyo mowduuc inuu inoo soo jeediyo kelimad aynu ku furfuranayno dowladdan, aynu tafaasiisheeda iyo qodobadeeda iyo ajandaheega gadaal aynu ka tilmaami doonno. waxaa kaloo aanu u mahadnaqayna walaalayaal dadweynaha sharafta badan ee dhinaca khadka laynka caalamka daafihiisa nagala socda, yurub, maraykan, kanada, australia iyo ashiyaba iyo africa. sidaa oo kale waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha iyagu sida tooska ah ugu jira social mediaha iyo baraha ay bulshadu ay ku wada xidhiiraan. walaalayaal, dhammaantiin waxaan idinku leenahay juziitum khayra wa tabawa'tum min aljannati manzila.
ilaahayna subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo wanaag iyo khayrna dhammaanteen ilaahay ha inugu beddelo. intaa kadib walaalayaal, waxaynu iskugu nimi dowro cilmiyaysan oo inoo socon doonta muddo 7 maalmood hadduu ilaahay yidhaahdo. sidan insha allahu tacaala cinwaan qoraala beyjka diintu waa badbaado aynu soo dhigi doonno. walaalaha kale ee na dhegaysanaya iyaga laftooda ogeysiis ahaan miday maqlaanna aanu ku gaarsiinayno. dowladdani waxay noo noqon doontaa insha allahu tacaala fariidatun min nawciha, mid inoo socon doonta insha allahu tacaala. waxaynu ugu magac darnay diinuka najaatuk, diintaadu waa badbaadadaada. waxaynu doonaynaa inaynu ku garanno abase aynu ku fahanno maa kaana calayhi الnabiy sala allahu calayhi wasalam wa saxaabatuhu اlkiraam min alcaqiida walcibaada walfiqhi walfahmi. ma dooniyo sheekha inaan hadalka aan kaga dheeraado. dowladda iyo qaabkay u soconayso, waxyaalaha la dhigi doono, taymka iyo waqtigay soconayso gadaal baan ka tilmaami doonaa markuu sheekhu inoo tilmaamo kelimadiisa iyo waanadiisa. iminka waxaan leeyahay sheekh axmed ku soo dhowow mashkuuran ma'juura wasadada allahu khutaak. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. بعد، أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله الله إن كلنسيي في هذا المجلس المبارك. ثانيا waxaan mahad u celinayaa shaykhuna alfaadil sheekh cabdiraxmaan axmed aadan xafidahu llah oo igu casuumay amba ii fidiyey inaan maanta qaato kelmad ka mida kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam. thalithan walaalaha kala duwan ayagana waxaan leeyahay wajazaakum allahu khayra aljaza. ilaahay ha idinka yeela aladiina yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsanah. walaalayaal, intaa waxaan u dhaafayaa sidaa walaalkeen tilmaamay sheekh cabdiraxmaan. waxaa inoo bilaabmi doonta addowra alcilmiya, dowro shicaarkeedu bacalankeedu uu yahay diintaadu waa badbaado. waxaa ugu talagalay maalmahan lagu jiro dabaaldega innaguna inaynu diinteenna u dabaaldegno oo aynu isgaadhsiino. kelmadaydu waxay ku saabsan tahay mowduuc ka mid ah mawaadiicda dowrada inaan ka hadlo oo xoogay aan isdul taago, maadaamay tahay maalintii ugu horeysay ee dowrada. runtii mowduuca aan doonaya inaan ka hadlo waa mowduuc muhiima
وموضوع قف ولبا وباهن يهي ومسلمة هديو يهي مذير يهديو يهي مدوين بل وموضوع أيو باهن يهين كوان مسلمين تاهيني وبدبادو ذا يا إلهي سبحانه وتعالى إني سيدبا يرهميان أي كغحر أنت هاي إني موضوع قروصدان أنبايا قنصدان موضوع سي قود هدي لو تلمامه توحيد الله تبارك وتعالى مادة أنبا فنقا أنشيدين دونه inta aynu dowrada ku sugannahay waa fanniga ah amba waa mawduuca alcaqiida maanta markaa waxaan jecelahay maadaama dowladdu ay maanta la bilaabayo bal inaan fadliga tawxiidka iyo qiimaha uu leeyahay fi dunya wa fi alaakhirah inaan xoogay ka tilmaamo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala walaalayaal tawxiidka dadka in badan oo ka mida kuma baraarugsana amba il dheer uma laha sababta oo ah waxay moodaan wax fudud oo qofku maadaama oo muslim uu yahay shay uu iska baran karo amba uu iska ogaan karo laakiinse fi lxaqiiqa tawxiidku sidaa waa ka duwan yahay markaynu leenahay atawxiid waxaa kaloo aynu odhan karnaa alcaqiida qofku waxa uu rumaysan yahay biliifinka qofka iyo qofku waxa uu aaminsan yahay weeye tawxiidku walaalayaal fadli badan ayuu leeyahay fi dunya wa fi alaakhirah tawxiidku waxa uu ku wareegaa kalimatu laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh qofku haddii uu kalimatu laa ilaaha ila allah iyo inta ay baaxad iyo qaran leeg tahay marka uu aqoonsado amba uu isha ku dhufto waxa uu fahmayaa mawduuca laga hadlayo iyo qaradiisa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala marka aynu dowrada dhex soconno ayaynu wax badan qaadan doonaa haddii ilaahay inoo idmo fadligu leeyahay tawxiidku waxaa ka mid ah inuu qofka ka badbaadiyo inuu ka faydo alkurubaat fi dunya wa fi alaakhirah ويبسط به النعيم والخيرات من الأمن التام في الدنيا والآخرة إلهي سبحانه وتعالى وحو يري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي سقط المامية توحيدك إيا وحلقوه له إيا إنو يهي mid qofka ka faydaya oo ka leexinaya dhibaatooyinka mid amni iyo xasiloonaan u sababaya ayuu ilaahay yidhi aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey walam yalbisuu iimaanahum bidulmin aan iimaankooda ku barxinan ba aan ku dheehin dulmi ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun kuwaasi waxa ay leeyihiin deganaasho iyo nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqay ku waari doonaan waxaa looga jeedaa walam yalbisuu iimaanahum bidulmin waa shirki aan ku dheehin oo aan dhex gelin qofku dulmi uu la yimaado waxa ugu weyn inuu allah subxaanahu wa tacaala inuu dulmiyo oo uu ku dulmiyo wixii ilaahay xaqa u lahaa oo ah atawxiid
iyo ilaahay keligii in la caabudo inuu meel kale u leexiyo. dulmiguna waa wadcu shayin fii gayri mawdicihi, shayga oo la dhigo goob iyo meelaan meeshiisii ahayn. qodobka labaad amba fadliga labaad uu leeyahay towxiidku, ee qofku hadduu noqdo qof towxiidku uu ka buuxa uu helayaa, waa yakfir allahu bitowxiidi addunuub. ilaahay waxa uu ka maydhaa, ilaahay waxa uu ka dhaafaa dunuubta. walaalayaad waxaad og tihiin inaynu habeen iyo maalinba aynu dabaalanayno, inaynu maaxayno mawjado dunuuba. waxaynu u baahannahay allah subxaanahu wa tacaala inuu dunuubteenna uu dhaafo. haddii aad doonaysa ilaahay inuu dembigaaga uu dhaafo, waa inaad la timaadaa atawxiid, waa ilaahay keligii inaad caabudaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo arooray min xadiisi anas radia allahu canhu wa ardaah, xadiisu lqudsiyi. ilaahay waxa uu ku yidhi: ya bna aadam inaka low ataytanii biquraabi alardi khadaaya huma laqaytanii laa tushriku bi shay-a la ataytuka biquraabiha makfira. haddii aad iila timaado adduunyada muggeed oo dunuuba oo khadaayaada, haddii aad iila timaado, haddii aad samayso, laakiinse aad ii timaado adiga oon wax shirki ah aan ii samaynahayn, waxaan kuula iman doonaa biquraabiha almakfira, dhulka baaxaddiisa in leeg oo dembi dhaaf ah ayaan kuula iman doonaa. walaalayaal, fadliga towxiidka waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kugu soo dhoweynayo, inaad ku raaxaysanayso fi ljinaanihi alculaa, jannooyinka waaweyn, jannooyinka dhaadheer inaad ku raaxaysan doonto ayaa ka mida fadligu towxiidku uu leeyahay iyo qofku midhaha uu goosanayo. waxaa soo arooray oo nebiga ka yimi sala allahu calayhi wasalam, xadiiska uu warinaya cubaada radia allahu canhu wa ardaah, nebigu inuu yidhi: man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh. qofka rumeeya allah subxaanahu wa tacaala, nebiyullaahi muxamedna u qira inuu yahay rasuulkii ilaahay, wa ana aljannata xaqun wa ana annaara xaqun adkhalahu allahu aljanna calaa maa kaana min alcamal. ilaahay waxa uu ku abaalmariyaa inuu geeyo amba uu geliyo jannooyinkiisa waaweyn. qodobka afraad amba fadliga afraad ee towxiidka laga helayaa waa yamnacu dukhuula annaara bilkuliya, inuu qofka towxiidku uu u diido amba uu u noqdo gaashaan, amba uu ahaado mid ka riixaya cadaabta iyo naarta kulul bilkuliya dhammaanteed. waa haddii uu qofkaasi yahay qof towxiidkiisu uu buuxo oo uu higaagan yahay amba uu dhammaystiran yahay. arrintaa waxaa daliilo ah xadiiska uu warinayo cutbaan radia allahu canhu wa ardaa: fa ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika wajha allah. nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa qofka allah subxaanahu wa tacaala rumeeya ee ilaahay cibaadadiisa u keliyeeya asagoo arrintaa ku doonaya biwajhi illaahi alkariim, ilaahay wejigiisa, asagoo ikhlaas iyo alla kacabsi iyo ilaahay daraaddii u samaynaya. fa ina allaha xarama cala annaar, ilaahay naarta waa ka xaaraam yeelay. fadliga labaad amba midhaha fadliga shanaad
laga goosanayo tawxiidku huwa sababu al-a'zam fi nayl ridha Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ku gaarsiinayaa waxa aad ka goosanaysaa waxa aad ku raaxaysanaysaa ilaahay inuu raalli uu ka noqdo ilaahay raalli ahaanshihiisuna walaalayaal waa mid weyn waa mid lagu helayo wax kasta oo doonayso waa mid lagaga badbaadayo wax kasta oo ka ordayso fadliga lixaad ee tawxiidku uu leeyahay jamiicu al-a'maali wal-aqwaal al-zaahirati wal-baadina mutawaqifun fi qubuliha acmaasha kuwa muuqda iyo kuwa ku jira quluubta waxay mutawaqif u yihiin waxay miisaan u ah iyo mid la saarayo tawxiidka ilaahay haddii qofku ilaahay tawxiidkiisa uu haysto hadduu ilaahay cibaadada u kali yeelayo waa mid acmaashiisa inta soo hadhay waa la aqbalayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dembi dhaafayaa fadliga toddobaad ee tawxiidku uu leeyahay waxaa tawxiidka lagu gaadhayaa amba qofku waxa uu ka goosanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jeclaado inuu ilaahay ku qurxiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hagoogo iimaanka la doonayo amba qofku inuu fi ziinati al-iimaan inuu dhadhamiyo inuu ka fogaado amba laga leexiyo waxyaabaha fisqiga ah iyo waxyaabaha cisyaanka amba addunuub ayuu waxa weeyaan tawxiidku uu ka dheeraynaya fadliga sideedaad wa yukhafifu can al-cabdi al-makaarih wa yuhawwinu calayhi al-alam qofka ahlu tawxiidka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u fududaynayaa arrimihiisa oo dhan waxaynu ognahay adduunyadan waa adduunyo ku gadaaman yihiin amba ay ku salaysan yihiin waxyaabo badan oo qofka xanuujiya haddii ay tahay cudurro haddii ay tahay ehel haddii ay yihiin awlaad haddii ay yihiin nolol maalmeed iyo howlihiisa uu gudanayo waxyaabo badan oo qofka xanuujiya oo daaliya ayuu la kulmayaa intuu adduunyada joogo waayo waa daarul ibtilaa haddii uu qofku yahay min ahli tawxiid hadduu allah subxaanahu wa tacaala keligii ku xidhan yahay kuu ka amar qaadanayaa ka uu adeecayaa kuu qalbiga mar walba uu ku hayaa kuu u foorarsanayaa kuu u soo toosayaa ka uu ku seexanayaa haddii uu yahay allah subxaanahu wa tacaala wa yuhawwinu calayhi al-aalaam waxyaabahaasoo dhan ilaahay waa ka fudaydinayaa ilaahay waa ka dejinayaa idan walaal haddii aad tahay qof adduunyada diiq ku jira amba cidhiidhi allah subxaanahu wa tacaala waa inaad keligii aada caabuddaa fadliga sagaalaad ee qofku uu helayaa waa yuxaqiqu bilikhlaasi fi lcamal qofku waxa uu xaqiijinayaa camalka uu samaynayo ayaa waa dhadhaminayaa waxaynu ognahay inagoo in badan ilaahay u taagan inagoo ilaahay u sooman haddana inaynu dareemayno inay wax inaga maqan yihiin qofku inaanu ku tamatucin amba aanu ku raaxaysan cibaadada uu ku jiro isagoo daalan isaga oo karaahiyeysanaya mararka qaar inuu ilaahay ishortaago qofku haddii uu laakiinse yahay min ahli tawxiid waxa uu dhadhaminayaa waxa uu ku raaxaysanayaa cibaadada uu samaynayo iyo camalka qodobka shanaad amba fadliga tobnaad aan idhaaho een doonaya inaan ku soo afmeero haddii uu qofku noqdo min ahli tawxiid ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga filaanayaa waxyaabaha adduunyada dhibaatada ku ah
إلهي وحا أوصينا بالفتح والنصر في الدنيا والآخرة والشرف والعزة وحصول الهداية إلهي وحا كتوسنا طريقا وناكسا إلهي وحا كقوينا بالعزة والشرف وحا نقونا قف الدنيا كن نول الدنيا كن حقاضية شرف يملقه قف هيبت كل الدنيا ويا الله سبحانه وتعالى يكحل إياهي إلهي بوكا أمر قادنا إياه ولا ليال توحيد كالنوع عاصية ضوايف بدن أيا قرب مري أما سيدي لدون إيان أولئما لذلك بوحا يكون ليه في الدنيا حصرت إيا بهدلات إيا شرف ضراء يكون ليهين وحاوقوه الرئية وأنو كردهان كرنا صاحدا هديانو ناهي دادك الصومالي نمانك الله يقانا الصوفية القبورية وحينو اقناهي داد بدن بضوايف بدن وكوا اينو شاقناهي كمديهين توحيد كي إني كير دوبين أما توحيد كي إنو مقدي يمدو كقلي كدبنا أي كوريرين أي كتحيرين صاحدة إن بدنا أدركيسو أيغو قبورتا وحويدي سنايا أيغو قبورتا كاعتكافيا أيغو كدب وريقيا أن الرمان إلهي سبحانه وتعالى أن أقلين مركزو إلهي وحو أقليي لباس الجوع والخوف دركي قاچدا إيا دركي فول حمضة أي قشيهين أن قفك مركا توحيدك أن كل بسن وحين أركنا دلالك إيا قروحده آخرة بإنتا لقارن أدونك كبحية أن برا حدا وكنو ليهي وحا بإذن الله تبارك وتعالى أين كتلنا مرول بإلين نقولنا من أهل التوحيد كلمة إذا كومن انتا أيان كسا أفميريا بإذن الله تبارك وتعالى مركا إنو دحق هذا إنو مادذا أينو أركي دوناه توحيدك إيا فضلك أوليهي وجزاكم الله خير الجزاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. أيها الفضلاء والفاضلات، تدوينها شرفت بدن قيمها يقايها بدن، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإصغاء. سيدة قد أقرار عيسان وقوق روحدا بدن، جزاكم الله خيرا أيان ذي كل نحي. ولا ليرصدا وكله شيخنا الشيخ أحمد ميدل إلهي هكا أبال مريو ميزانك حسنات كيسنا إلهي هاو قدر. runtii kelimaad kooban oo meel taabanaysa ayuu ka tilmaamay arrinta ku saabsan tawxiidka. walaalayaal, hadalka sheekha dhameeyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu tilmaamay إلهي الله هدلي الطائفة المؤمنة ويقول الريان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هي عدة كدم بيسا إلى قيام الساعة. هذا توحيد كالا حقيقية أولا لي مادة أولا قد داله. إلهي سبحانه وتعالى وحيري ولا تهنوا
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هالضعيفنا وح الله لي وحا إذن قبصانية أبني يتشبك اللي فكره همرقوننا وطيرايا دا إسكا إلالية وأنتم الأعلون إذن كسر يمر والبا أي أن العاقبة والنصر إنما هو لكم. عربت وناكسن يقعنت الصراء ينصردا إذن كايسكا يلانية وقارمة إن كنتم مؤمنين موحدين. تاسنا وحلق مارمانا قفك مسلم كوينو فهم معنى التوحيد. انت هدان تعليقهانا انك قد به دور سؤاله انت اينان دورده يقابك يوسعون يساينان وشرحين افر مسأله ابا افر سؤالات اردين عددك نقاقتمي ايانو دونينا شيخة انا وحينو كوي دينو قفكو اسلام لماذا وسؤال كوباد شيخ أحمد قفكو إسلام لماذا موسوغلي كرا بغير التوحيد توحيد الآن أبي صغى موحد أنا هين. تفضل مشكورا مأجورا. جزاه الله خير الجزاء. جوابته كوبا waxaynu leenahay qofku bigayri tawxiid islaamnimada ma soo galayo waayo tawxiidku sidaynu tilmaamnay wuxuu ku wareegaa oo asal amba bays u ah kalimatu laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh. halka bayska oo ah amba tawxiidku uu ka duulayaa waa kalimatu laa ilaaha ila allah. waxaynu ognahay qofku haddii aanu kelmadda aanu ku dhawaaqin amba dayrka iyo xayndaabka laga soo galayaa islaamka inay tahay kalimatu laa ilaaha ila allah. waa farqiga u dhaxeeya qofka muslimka ah iyo qofka gaalka ah. jawaabta oo kooban waxaynu leenahay ma soo galayo. markaynu sidaa nidhaahnana waxay noo caddaanaya توحيدك إيه قيمها ولايهي. وجزاكم الله خير الجزاء. سأشى الله بعد وحي تهي قفك مسلم كأهدو جيريودو وقبري جناو قرو توحيدكم يو أنفعيا. جزاه الله خير الجزاء. runtii waa su-aal muhiima. haddii uu qofku geeriyoodo waxaynu ognahay marka qabriga la dhigo ee laga soo dareero bale uu jaandhowga qofka u dambeeya uu isagoo marka uu sii maqlayo amba dadka aasaya marka ay ka soo dareeraan ayaga oon ka fogaanin siduu rasuulkeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka waxa u imanaya almalaa'ika su-aalay weydiinayaan. su-aalaha waxaa ka mid ah oo ugu horeeya allihii ku abuuray waa kuma, diintaadu waa tuma, se nebigaagu waa kuma. su-aalaha ayaa la weydiinayaa. qofku hadduu yahay min ahli tawxiid waxa uu ugu jawaabayaa jawaab saxa. allahaygu waa rab, nebigayguna waa muxamed, diintayduna waa islaam. idan haddii aanu qofku ahayn min ahli tawxiid waxa uu odhanayaa siduu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam buu odhan doonaa. idan waxaynu leenahay
qofku marka uu dhinto tawxiidku waa anfacaya bale tawxiidka haddii uu ka gudbo su'aalaha haddii uu ka gudbo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u furayaa daaqad ka mid ah daaqadaha jannada ilaahay waxa uu ku tilmaamay qur-aankiisa isaga oo ka warramaya arrinta oo tilmaamaya fi suura ibraahim aladiina aamanuu cafwan يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين إلى وحو يثبت الله الذين آمنوا إلى وحو الصغيا كو إيمان كالليم أي صغيا هل كلا الصغيا آيات أوجد وفي القبر غبر مركا لقليو سؤالها لو يدينيو إلهي قفك إيمانك لها أهل توحيدك هو الصغيا وحكو صغيا كلمة الحق الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكن سيانا هاي من أهل التوحيد كي وحويا الدنيا ذي إلهي سبحانه وتعالى أنك ليين هين ويذل الله الظالمين إلهي والمنيا مركا ولا ليال في الدنيا وفي الآخرة وفي قبره وفي سراده وينفع عيسى وجزاكم الله خير الجزاء. سؤاشتا إنو حكتا وحي نقونيسا سيديبانو برانا توحيدك أبس حقيبانو كبلونا su-aasha jawaabta oo koobani waxay tahay walaalayaal waxaynu ognahay dii aynu ku horeyno sidee ayaan u baranaa tawxiidka qofka waxaa loo baahan yahay muslimka ah inuu guud ahaan diintiisa uu barto waayo diintani waa diin cid gaara aan loo soo dejin waa diin shaykh iyo bikayri shaykh nin iyo gabadh mid yar iyo mid weyn waa diin ay waajib ku tahay inay bartaan khaasatan qofku inuu tawxiidka bartaa waa lafdhabar culimadu marka ay ka hadlayaan funuunta diinta waxay yidhaahdaan alcaqiida waa funuunta waajibka ah idan haddii aynu isweydiino sidaynu u baranaynaa amba halkaynu ka bilaabaynaa culimadu رحمهم الله كوي دنتي وحفظهم الله كوى النول أرنتي جهدي بدن أيي قليين توحيدك إينا فافيان يبدعاذا إيو وحيابها كسور كذين بربريان وحن شعالا إنا تلمامو دور كتاب وقفك اللوبة هاي أم ببيس إنه قفك لك وسدان بو بلابه وحكم إذا كتابك الأصول الثلاثة كوبا محمد صالح العثيمين علامة العثيمين الليهي رحمه الله كتابك معروف بالرسالة معروفة وحكم إذا القواعد الأربع أيضنا والرسالة قري محمد ابن عبد الوهاب والرسالة إنه كسو قادم دونه dowradeennan soconaysa asbuuca insha allah waxaa kaloo qofku uu ka bilaabi karaa amba kutubta bayska ah ka mid ah kitaabka loo yaqaano khud caqiidataka min alkitaabi wasunna kutubtaasi waa kutubta hordhaca ah amba bilowga ah amba bayska ah ee qofka loo baahan yahay inuu ka bilaabo kutubta dhexdhexaadka waxaa ka mid ah اللمعة الاعتقاد أيها كمذا العقيدة الطحاوي العقيدة الواسطية كتاب التوحيد سلم الأصول السفارينية كتبت النوع عاصية سوقفك حقه وسكب بلابية
waa inuu barto oo uu dhigto siduu u noqdo tawxiidkiisu mid sagsaga amba mid midho dhala mustaqbalka inta ayaan odhan lahaa wajazaakum allahu khayr aljazaa. walaalayaal su-aasha ugu dambaysa ee sheekhaynu weydiinayno waxay noqonaysaa kelimadan qiimaha iyo qaayaha leh eed nagu wacdisay eed nagu waanisay ee tawxiidkuna uu ku dheehan yahay talooyin iyo tawjiihaad maxaad naga siin kartaa? جزاكم الله خير. حقيقة سؤال مهمة. ولا ليال أولا وحين يصدر دار منا أبنى استيحادي أن واحدة هي تقوى الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إن لقى عبصده أو لقى بقه سدبه وحكى له أن يصدر دار منا إن وقتك لقى فايدة يسته oo looga faa'iideysto al-cilmu sharciyi cilmiga sharciga ah. waxaynu ognahay marka la garab dhigo waqtiga aynu siinayno cilmiga, waqtiga aynu siinayno amba shaqooyinkeenna amba social mediaha amba inaynu iska lumino inay aada u yar tahay waqtiga aynu siinayno alcilm. إلهينا سبحانه وتعالى وإنه ويدينا يا وقتك. وحدوكتين حديثك ورنا يا أبي هريرة إمام الترمذي نو صاري قفكو إلهي أرتيس كما دقاقيو إلا يولا ويديا صدح سؤالود. سؤال شوقوه الرئيسة وحويان إلا ويديو شباب نمذي يدلني يرذي لسيي فيما أفناه maxaad ku dhammaysay. waxaa markaa daruuriya qofku inuu u helo su-aasha inuu jawaab u helo. jawaabta ugu fudud eed u heli kartaana waxay tahay waqtigaaga inaad siiso wax ka mida alcilmu sharciyi inaad siiso, inaad ku dadaasho inaad cilmiga dalabto, inaad la socoto duruusta, inaad u soo jeedo ood u saamalaysho cilmiga ilaahay iyo barashadiisa, dabeedna aad camal geliso. inta ayaan ku soo afmeeri lahaa. wajazaakum allahu khayr aljazaa. alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. وحي إمك إنو سقنا وحي نقونيسا إن شاء الله تعالى دوردا يماددها يوقتها إنو سكت المعنى هبص إنو سكشك دوردا waxaynu ugu magac darnay diinteenu waa badbaado. waxay bilaabmaysaa abase si toos ay u bilaabmatay maanta oo habeen jimco ah ay tahay, dadka qaarkoodna ay u xisaabiyaan maalin khamiisa. darsiga koobaad إن شاء الله تعالى وحنقون دونا تفسير سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. وقتك أي سوق لي سنة وحنقون إيسا تضبضا في دنيمو لينا وقتك وحينو waqtiyaysan doonaa abase aynu isku tilmaami doonaa waqtiga ingiriiska aba UK markay 7 ay u tahay
fiidnimo yurubta kalena waxay u noqonaysaa 8. درسiga koobaad wuxuu ku saabsan yahay tafsiir suurat al-axzaab oo axkaam fara badan xambaarsan oo dadka muslimiinta looga baahan yahay inay ogaadaan. mowduuca labaad qadar ilaa 5 daqiiqo 10 daqiiqo ayaa la qaadan doonaa oo xoogay nasasho ah. haddana waxa la soo gelin doonaa abase inoo bilaabmi doona darsiga labaad oo cinwaankiisuna uu yahay alqawaacid al-4 afarta qaacido ee furfurasho u noqon karta tawxiidka oo qofka afartaa qaacida iyo afartaa asal fahmaa uu ka dhigan yahay nin alla diintiisii fahmay aba tawxiidkii furihii tawxiidka gacanta loo soo geliyey. darsiga labaad wuxuu bilaabmi doonaa waqtiga UK markay tahay 8 ay tahay ayuu darsiga labaad bilaabmi doonaa. yurubta kalena ay u tahay 9 habeenimo. si toosa 2 meelood baa looga soconaya insha allahu tacaala. meesha koobaad waxay tahay dhinaca beejkeena diintu waa badbaado. marka labaadna waa dhinaca qolka umahaat annuur oo dhinaca khadka iyo laynka oo laga dhegaysanayo si toosa yurub oo dhan, maraykan, canada, australia. 3 meelood aba 4 goobood iyada dhinaca laynka ayaa si toosa looga dhegaysan doonaa. si khayrkan walaaluhu aanay uga qadin walaalaha afrikada jooga aba asia jooga, waxaa suuragal ah laynkan inaanu u fududayn. iyagu si toosa ayay uga socon doonaan, ugala socon doonaan social mediaha insha allahu tacaala abase dhinaca facebooka biidn illaahi tacaala. walaalayaal insha allahu tacaala beritoolena si toosa ayay maadaduhuna ay u bilaabmi doonaan. waxaanu ka codsanaynaa walaalaha khayrkaa ha la faafiyo, ha lasku sheego, ha la sheergareeyo. walaalaha dhinaca laymamka ku jira qof waliba qaraabadiisa xigtadiisa qolka iyo laynka ha ku soo xidho si khayrka looga wada faa'iidaysto. waxaan idinku leenahay walaalayaal dhammaan dacwadda ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka wada qayb qaadanno. wajazaakum allahu khayra wa axsana allahu ilaykum. intaasi ayaynu kusoo gabagabayn doonaa insha allahu tacaala. markii koobaad waxaynu doonaynay biidni illaahi tacaala inaa mowduuca asbaabu hadmi lbiyuut oo beijkan si toos aynu uga iclaaminay, laakiin meelo kale aanu ka geli doona insha allahu tacaala. laga yaabo dadku inay muxaadaradan iyo kelmadan inay oxogay inay yaro daaleen, laakiin waa ballan mowduucaasi asbaabu hadmi lbiyuut si gaar ahaaneed beejkeenan inaan insha allahu tacaala inooga bixi doono. hala sheergareeya khayrka. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay addaalu cala alkhayri ka faacilih kama rawaahu alimaamu muslim. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka khayrka dadka u tilmaama waxa uu la mid yahay nin khayrkaas sameeyey. maantana alxamdu lilah kun daaciyan biqowlika wa kun daaciyan bificlika wajazaakum allahu khayra. muddada dowradaasi sidan hore baan u tilmaamay 7 maalmood oo qura ayay soconaysaa ood cilmi iyo faa'iido badanna aad kala baxaysid. allah ha idin barakeeyo. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaacah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.